haddaan nahay Soomaali oo dad iska tabar daran iska daciif oo kaabiyaasha mataqaana caafimaadka iyo waxba haysan aan nahay waxa weeyaan waxa la yiraahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka dhowrsashada waxay ka fiican tahay daawada cudurka intuu yani qofku markuu ku dhaco si loo daaweyn lahaa waxa in yani lagu fikri lahaa oo kolba dhakhtar loo geyn lahaa waxa ka fiican ka dhowrsashada ayaa ka fiican marka waxa weeyaan maadaama annaga saas aan nahay dad iska tabar daran aan nahay in mataqaana waxa weey oo caafimaadka meel kasta oo mataqaana wafiriin noo ahayn aan heli karin in aan ku dadaalno ka dhowrsashada in aan ku dadaalno تعليماتك إيه تلوينك إيه توجيهينك مثلا ضدك أو أهل التخصص كاس أو عافماتك دخاتير السوج جديا إن قادنا يعني لقدون يا النبي عليه الصلاة والسلام وحود ديدي إن لقالوه بلدك داعون قدعه إن لقالوه النبي واد ديدي قفك كجر بلد كاس إنه كصابح أنا واد ديدي سبب تسيد الله سمينا ين وحيته هاي إن عذرك مثلا وحويا الحيرة مال وكوبه وحاس وحيابها الله يقانا وهذا مثلا dadku u yaqaaniin الحجر الصحي يعني كارنتيلك واحد dadka ay u yaqaaniin cudurka in la karantiilo si faafidiis loo yareeyo oo loo mataqaana waxa weeyaan xajmi looga sameeyo xajmiis loo yareeyo in maanaha mataqaana waxa weeyaan aan loo galin aan mataqaana waxa weey laga soo bixin marka kan kaas oo kale uu limid yahay ilaahi wuxuu yiri fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun waxa idinku aqoon u lahayn weydiiya dadka aqoonta u leh idan cuduradaas iyo baabkaas waxa shaqadooda ay tahay dhakhaatiirta iyo dadka mataqaana waxa weeyaan caafimaadka shaqo kule ayaa yaqaana dadkaas marka talooyinka iyo mataqaana tawjiihaadka iyo irshaadaadka iyo mataqaana talooyinka iyo nasiixooyinka ay soo jeediyeen waa in loo iltizaamaa in la qaato weeyaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh